السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن إذ الكيمبا أصحاب تسود وهذا ما أنت وحين كشاكين دونا لجمود نقص ويدي أحباب لجمودي ونقون ويدي وحي لجمرين لجامرين هي كسود وهذا قصدا وحي كد عضي دلك تركيا جارهان عاصمة تركيا اسطنبول أو ميل أو أيضا أدو أو تورو أو كتالله ayay ka dhacay qisadani waxay ka hadlaysaa dhalinyaro Sacuudiyaan oo ka timid magaalada Madiina ayaa waxay damceen inay fisqi sameeyaan oo gaar ahaan ay ka qabeelaan baasha loo yaqaan khamrada anaga kulli maanan arkin waan maqlaa'uune khamrada ayay jeclaadeen inay cabaan oo ay ka qabeelaan sidaa darteed wiilashani waxay yiraahdeen maadaama dalka Sacuudiga uu yahay dal islaam ah oo dalku khamrada in lala dhunto mooyana aan lagu cabi karin ayaa waxa dhacday maalmaha kamid ah in ay wiilashani waxay yiraahdeen khamra siyan uga dragno oo nooga qabeelo oo uga hamuunbeelo in aan meeshan meel ka baxsan oo ku soo toona gabdho qurux badan aan u sahelo waa inaan aadno meel kale marka waxa u soo baxday dalka Turkiga inay aadaan dalka Turkiga sida ogtay ma waa dal Almaani ah hada maalmaha dambe laakiin markii soo hor dal Almaani ah oo diintii laga raray ayuu ahaa marka waxa dhacday marka wiilashani inay sameeyeen diyaarad tigid bay soo goosteen way soo baxeen waxay ka soo degan caasimadda dalka Turkiga Istanbul hadana waxay ka sii aadeen tuulo banaankeeda ayay aadeen marka waxay socdaanba waxa dhacday in ay sameeyaan hotel ayay degeen tuulooyinka weyn xaga kamid banaanka magaalada ah ayay aadeen tuuladii markii aadeen waxa dhacday in ninkii markii hotelka managerka ahaa ayaa ama maamulaha hotelka ayaa wuxuu weydiiyay xageed ka timaadeen waxaan ka nimid bay yiraahdeen magaalada Madiina Munawwara ayaan ka nimid ninkii arinta aad iyo aad ayuu u weyneeyay oo uu xushmeeyay maadaama magaalada rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay ku duwan yihiin ay ka iimaadeen xaramkii barakeysnaan oo ku yaalo xaram thani markii maka laga soo tago marka waxa dhacday marka meeshii baa la soo dhaweeyay aad baa loo ixtiraamay waxa sheegaan marka dadka hotelka soo dega qolqolba la siin jiray laakiin asaga waxa la siiyay qol VIP ayaa la siiyay oy seexdaan marka waxay yiraahdeen marka khamro show way wataan oo ugu jirta boorsada marka khamradii markay meeshii bay seexdeen oo marka dharkay dhigtay markay daalka baxay khamradii cabeen sidii meesha ay khamrada u cabeen oo marka goor dambe ayo 10 saac ay iska seexdeen way dhaceen markay khamrada ay ka baxday ayaa goor salaad subax ah aadaanka hore ayaa albaabka lagu soo garaacay marka waxa lagu yiri fura war kuma bayira marka waa ninkii hotelka u xil saarnaa marka waxa inay wacaya ninkii managerka ah ayaa inay yeerayay oo maxaa jira wuxuu rabaa dadka magaalada dhan ayaa inay sugaya oo waxay doonayaan inaad tujisaan inayna barakaystaan darteed ayay inay sugayaan masaas aha ayay marka su'aalo iskula dhaqaaqay markay su'aalo iskula dhaqaaqeen war maxaad quraan u taqaanaa wiil kii kale wuxuu anu waxaan aqaanaa quraan qul walla iyo birman ayaa adoo birman falaq iyo intaas aqaanaa wiil marka masaas aha waayahay iyo faatixada kii kale maxaa wax waliga lama dhiga ma jirto wax aan aqaano oo quraan ma jirto ayuu yiri sida darteed wiilashii maadaama la suudo mar laba lagu soo dharba ilbaabka lagu soo garaacay way labistay way cadaydeen way weysiisteen masjidka bay aadeen marka saawada saayidka dadka oo buuxa afka haya weeyaan way yaabeen marka وعجيب aad bay u yaabeen si qisada ku jiraan iyo falkay ku jiraan foolxumadiisa iyo wixii dalkii iyo deegaankay ku dhashay in masjid rasuulka kaleey salaatu wasalaam ay uga soo hijroodeen cabitaan khamro ah iyo dadkii muslimiinta ay meesha ugu yimaadeen say u ixtiraamayaan ee u sharfayaan ee agtooda magaalada ay ka yimaadeen u sharfayay ehelkeedaba waxay dadka u qaban markaa dad wanaagsan oo ehel khayr oo asharaafa ay u haystaan saadarteed nasiib wanaag dadkii masaajidka tujiyeen oo markay salaada ay ragcadii horeba faatixada iyo qul waliya uu akhriyay dadkii oo dhan masjidka magaalada show wax ka maqanba ma jirta marka dadkii oo dhan oo hin bay la dhacay baba
وهردو إيشك أوهن يبوهن بيلك ككعين نصيب درو مركا أصيكو قرشي وتين ضدكينا قرصك ليك أمسيهن مركا نقول سويدي وحي لوها يشتي لمود نقول سويدي محايا لي ليس الخبر كالمعين باليرادة مركا ضدكو سيدا يوهستان مقالة المدينة مسجد بركيسنا باكو يالا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باكو آسن أبو بكر باكو آسن عمر باكو آسن عثمان باكو آسن علي بن أبي طالب باكو آسن أم المؤمنين باكو آسن عائشة مركا ضدكي وناك بيت مركا كتر سنيان نما كان سيداس أي مركا ولا لي قصة هديك سوق قادو قصة هديك سوق قادو وحن كعصرنا إن أطفافيسيد أو خير كقيب قادتيد محايلي نما كان يرى الدائرة تاعها وحيابا بدن بي آمسين مركا وحي أي خبين ويلاش مركا إلهي وحن كسي يرى ذكي أو يهي احترامي بي وحي كو قاتين كوانا قاتين wixii oo dhan way ka tageen barnaamijkan ayaga ka faafiyay oo qaabka ay ahaayeen iyo sidii hawsha ay u dhacday ay u faafiyeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad mahadsantiin dhammaantiin